kusoo gudbin doona Netanyahu oo kulan la qaadan doona saacadaha soo socda xubnaha amniga iyo golihiisa wasiirada xaaladaha soo kordhay askartan nagta lagu hayo iyo heshiisyadan iyo waxyaabahan ayay doonayaan inay ka wada hadlaan waxa soo kale barnaamijkan idinku soo gudbin doona wararkii ugu dambeeyay gudaha Israa'iil waxa la sheegayaa dadka Yahuudda ah inay naceen dagaalka Gaza ayna dalbanayaan in dagaalka laga joojiyo haddaba dawladdu arikaabiyay yeeli doontaa mise waa hawl kale haddaba tafaasiil ku saabsan arikaas iyana barnaamijka ku faahfaahin doona haddaba qodobadaas ayaynu barnaamijkeena galabnimo aan ku soo gudbinaynaa waan hubaa inaad si weyn uga heli doontaan macluumaadka barnaamijkan uu xambaarsan yahay inta aan ku jirno warar cusub hadday soo kordhaana waan idin la socodsiin doonaa Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada xawaaladan waa online internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halka waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay kamid yihiin kuwa maqaarka kuwa carruurta kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halka ka howlgashay howladaynadoodu waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena galabnimo haddaba barnaamijka qaybtan waxaynu kaga sheekayn doonaa warar hadda iska soo dabardhacay dhammaantood oo Al Jazeera ay ka qorayso dagaalkii bilowday duhurkii maanta ilaa hadda oo qorax dhici ah nagta la isku haya dhagaha la iska garaacay waxa helicoptero dhaawac soo daldalaya waa yaabaysaa haddaba marka hore waxaan idiin akhrinayaa wararka dagaalkan hadda Al Jazeera ay ka qortay kadibna waxaan idiin faahfaahin doonaa falanqeeyayaashu waxa ay ka yiraahdeen weeraradan soo laalaabtay ee askarta Israa'iil ay ku gacan galeen haddaba marka ugu horeysa Al Jazeera waxay ciwaan uga dhigtay waxay tiri dhaawacyada ciidanka Israa'iiliyiinta ayaa la soo sheegayaa isku horimaadyo ka dhacay Gaza warbixinada qaar waxay sheegayaan dagaal fool ah in la isaga hor yimid haddaba warbixinada waxay sheegayaan iyadoo la soo xiganayo warbaahinta Israa'iil maanta oo sabti ah inay dhaceen laba arin oo amni oo waaweyn oo gudaha Gaza ka dhacay mid kamid ah wuxuu ka dhacay deegaanka la yiraahdo Khan Yunis oo ku yaala koonfurta marinka Gaza kan kalena wuxuu ka dhacay xaafadda Shujaaciya la yiraahdo ee ku taala bariga marinka Gaza haddaba waxaa la sheegay in qaar kamid ah tiro ciidanka Israa'iiliyiinta ah la sheegay inay weerarkaasi ku dhaawacmeen kadib markii dagaal ay foolka isla galeen iyaga iyo ciidan ka tirsan Kataa'ibul Qassam haddaba mowqica la yiraahdo ikhbaariyatul Israa'iiliya oo macnaha ah mid kamid ah wargeysyada waaweyn ee Israa'iil waxa uu sheegay in helicopterada dhaawaca soo daldalayay saacadihii la soo dhaafay ay geynayeen isbitaalada magacyadoodu ay kala yihiin Tal Hoshmir, Belenson iyo Soroka iyo Enqilof afarta isbitaal waxaa la sheegay in dhaawacyo fara badan la geeyay warbaahinta Israa'iil waxay sheegayaan in dagaal aad u ba'an uu hadda soconayo qaybo kamid ah Gaza iyadoo saacadihii la soo dhaafayna dagaal aad u qaraar ay dhaceen haddaba warbixinadii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in askarta qaar badan oo kamid ah dhaawacyadoodu la sheegay inay halis yihiin ciidanka Israa'iil ayaa waxay sheegeen in sidoo kale laga bartilmaameedsaday qaar kamid ah gawaaridii ay wateen haddaba dhanka kale waxaa la sheegayaa in ay sameeyeen weeraro in lagu qaaday qaar kamid ah
makiinadaha dhulka ay ku qodayeen ciidamada israa'iiliyiinta marka warbixinadaasu dagaalada marka maxaa meeshan marka ay leeyihiin dadka wax falanqaynaya waxay leeyihiin dagaalkan sidiisaba maalmahan wixiisu waa khayr-alcaadi wixii la rabo ha lagu tilmaamo mucjiso ilaahay ha lagu tilmaamo geesinimo dhaaftay qolaa ku tilmaamaysa qola waxay leeyihiin dee markii dadkii la gaajaysiiyey oo godadka dhulka hoostiisa ciidamadii ku jiray ay ku jiri waayeen bannaanka inta usoo baxeen waxay nimanka aan iska dhicinno nimankii marka iyagoo dheg la qabta lahayn koriga hoos waa dhimanaysaaye adigoo xabadda ridaaya dhimo iyagoo ay dagaalamayaan marka waxaa leeyahay nimankii jibaalkoodii waa fasheenaalle jibaal waxaa layidhahdaa sidiisaba beerta dhulka beerta qayb ka mid ah jibaal 2 jibaal 3 jibaal layidhahdaa marka nimankan muqaawamada ah waxaa leeyahay jibaalkoodii waa falanayaan maalmahan si fiicanay u fasheen dhagaha layska garaacay marka waxaa leeyahay nimankii israa'iiliyiinta 4 isbitaal fiiri oo magacyadoodu halkan ku qoran yihiin 4 isbitaala dhaawacyo la geeyey marka isbitaala la geeyey mid labaada la geeyey mid saddexaad mid afaraad meeqay noqon karaa xisaabtooda iyagu marka waxay taagan yihiin 2 meel ay hal meel ah 4 isbitaal see loo geynaa marka 3 dhaawacantay see 4 isbitaal loo geynaa haddana warbaahintoodii waa waxaa leh 4 isbitaala la geeyey marka meeshaa marka waxaa ka cad maalmaha nimankanu in maaragtay garaacis xoogle ay ku socoto muqaawamadii waxay la soo baxeen dardar la yaab leh miinada ordaysa alyaasiinka garabka lagu wato waxaa lagu leeyahay askarta socota maaragtay hubaysan gaza dhan duleelaha laga dhigaa lagu leeyahay meel walba goda way ka soo baxayaan rubax maxayiin masasmiya dhulka saa u socotay labaa ka soo baxaysaa lagu leeyahay god waaye nimankii marka meel laga jiro in meel kale aqoon waayeen markii arrimahan ay dhaceen ninkii Netanyahuna uu hadda ku soo laabtay Tel Aviv ayaa waxaa la sheegayaa wuxuu ballansaday hadda qolyihiisii amniga iyo wasiiradiisii gaarka ahaa si bal arrimahan taagan wax looga dhaho 2 arrin marka miiska u saaran arinta safqada ama heshiiska isdhaafsiga maxaabiista iyo xabad joojinta inay go'aan ka soo saaraan iyo midda kale xaalka Gaza dee waa soo xumaad askartii wejiga ma gelin karaanba duqaymahaas diyaaradaha wax duqaynaya maahane foolka fool haddii la isaga hor yimaado askarigu wax xabada ma ridi karo inuu cararo bas u go'an marka arrinkaas iyaduna inay wax iska dhahaan haddaba marka aridatusu waxaa leeyahay Netanyahu wuxuu qaban doonaa barito kulan wada tashiya oo ku saabsan heshiiska isdhaafsiga maxaabiista hay-adda wararka u faafisa Israa'iil waxay sheegtay ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu inuu qaban doono bari galab kulan degdega oo looga arrinsan doono arrimahan taagan ee heshiisyada iyo arrimahan kale ayaa maaragtay lagu arrinsan doonaa oo maaragtay la iska wareysan doonaa waaye marka xaalku halkaasuu maraa waa idiin sheegaan maalmahan markaa soo fariistaba bal newskii fiiri aan israado aljaziira waaba saaran yahaan war degdeg ah nimankii nagtaasaa laga gurayaa dhagaha laga garaacay helikobtarada xagga waa kana hawshaasaa socotaa le nimankii marka waa la yaaba haddana waxa ugu badan ee warka tabinaya waa warbaahintooda u fiirsada aljaziira laftirkeeda waxay soo xiganayso waxa waay 90% warbaahintoodii waay joornaaladoodii idaacadahoodii telefishinnadoodii waxay leeyihiin intaasaana la ku galay halkaasaa la galay isbitaaladaasaa la geeyay iyagaa warkaa keenay marka xaalku halkaasuu maraa waaya marka sheekooyin cajiiba noo soo socda oo ku saabsan 60 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Ingiriiska ayaa waxay leeyihiin waa in la aqoonsadaa sida ugu dhaqsiya badan dawladda Falastiin 60 xildhibaan waay marka sheekadaas iyo sheekooyin kale oo u tagi doona laakiin wali waxaynu ku jirnaa arrimaha Gaza marka nimankanu markii sidaas nagta looga saaro iyaguna waxay garaacaan meelaha dadka rayidka joogaan iyo dadka cuntada soo doontay ayay marka iyaguna dhagaha ka garaacaan haddaba